waxaa soo taraya dhaleeceynta dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga imaaneysa dowladaha caalamka iyo hay-adaha taageera Soomaaliya taas oo la xiriirta xariga sharci darrada ah ee dowladda Soomaaliya u geysatay xogayaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdalla Muumin. dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo sidoo kale ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyay xariga sharci darrada ah ee loo geystay xogayaha ururka SJS Cabdalla Muumin. qoraal ka soo baxay safaaradda dowladda Mareykanka ee ku leedahay Muqdisho ayaa waxaa lagu yiri Mareykanka ayaa si dhow ula socda xariga joogtada ah ee dowladda Soomaaliya ee ku hayso Cabdalla Muumin oo u ololeeya xorriyadda saxaafadda taageerana horumarinta warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya. dhinaca kalena safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay xariga xogayaha SJS Cabdalla Muumin lagu cambaareeyay. boqortooyada Ingiriiska waxay si aad uga walaacsan tahay xariga Cabdalla Muumin xogayaha guud ee SJS. xorriyadda qowlka waxa uu saldhig u yahay dhammaan xuquuqda insaanka waxayna ku boorinaysaa Soomaaliya inay raacdo nidaamka sharciga ah iyo in dacwadaha si cadaalad ah loo dhageysto. sidoo kale guddiga difaaca saxafiyiinta ee Afrika ee CPJ ayaa dhankooda si kor uga hadlay iyagoo ka jawaabaya u doodida xorriyadda saxaafadda waxaana ay sheegeen in ay ka naxeen xariga dowladda Soomaaliya ay kula kacday Cabdalla Muumin. Cabdalla Muumin waa nin aan cabsi lahayn oo aan ka daalin u doodida xuquuqda suxufiyiinta Soomaaliyeed inay si xor ah oo madax bannaan u tabiyaan wararka. xarigiisuna waa gardarro aan la aqbali karin waxaana shaki la'aan ah inuu cabsi badan u dirayo baha saxaafadda Soomaaliyeed ayuu yiri wakiilka CPJ ee Afrika Motema Mona. ugu dambeyntiina hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International qaybteeda Afrika ayaa sheegtay inay ka wacaysan tahay xariga aan sharciga ahayn ee xogayaha ururka SJS Cabdalla Muumin. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waa inay si degdeg ah oo shuruud la'aan u sii daayaan sidoo kalena waa inay ixtiraamaan ilaaliyaan oo ay horumariyaan xorriyadda hadalka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka Amnesty. dowladda Soomaaliya hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa culays xilligan kala kulmaysa beesha caalamka taas oo la xiriirta xariga Cabdalla Muumin iyadoo la ogyahay in dowladda ay ku tiirsan tahay dhaqaalaha iyo taageerada ay ka hesho dalalka caalamka taas oo laga yaabo inay la kulanto dib u eegis lagu sameeyo haddii ay sii wado xorriyadda saxaafadda oo lagu tuntay iyo sidoo kale xariga wariyaasha. bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus. waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. macaamiil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah. sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah. macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn. macaamiil uga shuba xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 114 gees adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees. ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees. macaamiil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor.